kulanti iyo aragti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada Miftaax Tube. Toddobaadkan waxaan ka hadli doonaa taariikhda boqorka ugu da'da yar Afrika, dalka Uganda. Boqorka dunida ugu da'da yar ayaa si rasmi ah loo calaamad saaray King Oya Nyomba Kimamba Iguru Rikuti Ivy. Waxaa loo magacaabay inuu noqdo boqortooyada Tioro Kingdom ee galbeedka Uganda kadib muddo 15 sanadood ah uu xilkaasi sugayay. King Oya waxa uu wax ku ool noqday 1995 kadib dhimashadii aabihiis. Xilka ayaa iska banaanaa ilaa inta uu si rasmi ah u gaaray da'da qaangaarka. Boqortooyada Toro waa mid ka mid ah afarta boqortooyo ee dhaqanka Uganda. Madaxweynihii hore ee Uganda Milton Obote waxa uu ka takhalusay boqortooyooyinkii Uganda 1967, laakiin madaxweyne Museveni ayaa dib u soo celiyay 1993. Kumanaan kun oo reer Uganda ayaa ka qayb galay xuska oo ay u hibeeyeen ducooyin loo duceeyay boqorka, waxayna ahayd xaflad aad u qurux badan, ayuu yiri Philip Winyi, wasiirka warfaafinta boqortooyada. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda waxa uu sheegay inay ahayd xaflad si fiican uga soo qayb galeen boqortooyada dhexdeeda sanado badan kadib. Winyi waxa uu sheegay in boqorku uu khudbadiisa ku cadeeyay inuu soo bandhigayo barnaamij 5 sano ah oo xooga saari doona waxbarashada, gaar ahaan kuwa saboolka ah, iyo caafimaadka, nadaafadda. Boqorku waxa uu isku dayi doonaa inuu maalgeliyo tasjiilaadka caafimaadka iyo qalabka, ayuu yiri Winyi. Taasna waxa uu kale xooga saari doonaa nadaafadda guriga si loo hubiyo in dadku ay helaan biyo nadiif ah, tasjiilaadka musqulaha. Arrinta kale oo uu boqorku kala shaqayn doono odayaasha ayaa ah sidii loo qaban lahaa in la hubiyo cunno ku filan iyo weliba kaydinta cunnooyin kale. Wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in boqorku uu sameynayo daraasado dheeri ah, laakiin uu leeyahay fursado kale oo badan. Wuxuu xiiseynayaa tababarka militariga, wuxuu sidoo kale xiiseynayaa tiknoolajiyadda, macluumaadka iyo maamulka. Dabeecadaha shakhsi ahaaneed ee boqorka marka la eego da'da uu jiro, boqorka waxa uu leeyahay xiiso badan oo ku aadan hagaajinta daryeelka dhalinyarada. Xaqiiqdii ma jiro qof ku tilmaamay in uu yahay boqorka internetka, waxa uu yiri Winyi. Doorka tiknoolajiyadda ee dhalinyarada ayuu door muhiim ah ka ciyaaraa boqorka. Intaasi waxaa sii dheer, waxa uu yiri boqorku waxa uu kalsooni ku qabaa dadka dhalinyarada ah, maxaa yeelay wuxuu og yahay in ay u baahan yihiin in ay la wareegaan markii ay noqdaan kuwa xaaladaha adag iyo dhibaatooyinka la tacaali kara. Winyi waxa uu sharaxay in maadaama King Oya uu mar horeba boqor ahaan jiray aabihii ku dhawaad 15 sano, arrimaha maamulkana wax ka cusub isaga ma aha. Hawlo tixano ah ayaa la qabtay 2 maalmood intii lagu jiray dabaaldegyadii soo xirmay. Hawlaha qaar ka mid ah waxa uu ahaa abuuritaanka geedka boqorada, bandhiga tartanka kubadda cagta ee qabaliga ah, nadaafadda magaalada, riwaayado iyo weliba heeso habeenkii oo dhan ah. Waxaa ka soo qayb galay dhowr hogaamiye dhaqameed oo Afrika ah oo ka kala yimid Mali, Zimbabwe, Egypt, Mauritania, South Africa, DR Congo, Nigeria, Libya, Kenya, oo ay ku jiraan marti sharaf ka socotay Mareykanka. Waxaad ka daawanayseen kanaalkeena Miftaax Tube. Haddii aad ka heshay barnaamijkan, subscribe saar kanaalkeena, rukumana gambalelka haddii aad ka heshay muuqaalka si aan u ogaano like saar. Mahadsanidin.